السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وان إن السلام السوماليين ملك استوديوس ودينبو وان إن السلام ولا على الصوماليات إيه سود وهذا شير قراية أو بيش كلا قدر أو شير إن شير كتير بارها بيش كلا قدرتين إن شير قريسين أيا دمانتي لها ولا على الصوماليات دمانتي وان إن السلام أيا marka waxa weeyaan waa noo bilaabayaa aniga sheekadayda waa isaga tuurtaa waa bilaabayaa siyaasadii Soomaaliya waan u socdaa xaggeeda Soomaaliya ka shidan tahay gaar ahaan dowladda federaalka iyo Jubbaland ay ka shidan tahay mar kale ayay doonayaan dowladda federaalka in ay haddana barabagantii ay u barteen barabaganti beentay u barteen ay weligood Facebook iyo meelaha ay soo gelin jireen idaacadaha ayay haddana maanta wadaan ay bilaabeen waxay buufinayaan nabad iyo nolol namar iyo naxdin waxay buufinayaan in ay leeyihiin Ethiopia iyo Eritrea ciidamo isku daray ayaa la keenayaa Jubbaland sidaas la rabaa Jubbaland in Amazon iyo lagala wareego lagala qabsado ciidanka Jubbaland ee Soomaaliyeed ee jooga Jubbaland iyo ciidanka Amazon ee Kenya ee Kismaayo ku sugan ayaa la rabaa Biden in uu ay kala wareegaan ciidamaha Eritrea iyo Ethiopia ee farmaajo u dalbadaan leeyahay oo u dhahelayaan Kismaayo ay qabtaan farmaajo markuu horto inuu doonayo Kismaayo inuu qabsado markuu rabo Eritrean inuu ku qabsado Ethiopian haddee waxa weeyaan dalkina wuxuu geliyay kala shaki iyo kala iimaan bax iyo isqa qabsi iyo kala carar iyo wadankii dhibaato aan soo afjarmanaynin iyo colaad ay uqdad isku qaadeen gobol maamuleedyaasha iyo dowladda federaal farmaajo waxaas dhan asaga xiriir Soomaali dhan way ka dheragsan tahay haddana ma wuxuu dooni wadanka inuu Eritrea ku soo xiray Ethiopian oo haddana la yiraahdo baddi bay haddana kuwa ku dhagayaan Soomaha ilaa bad ma haystaan Ethiopian bad la'aan hayo bad loo dhibin xusubin markaas soo ku dhagin hayo marka waxa weeyaan farmaajo sharkiisa Ilaahay baa laga magan galayaa Soomaaliyay farmaajo sharkiisa Ilaahay ha laga magan galo oo Ilaahay ha la baryo farmaajo hadduu wadanka dhibaato u soo kordhinaa Ilaahay ha laga magan galo sharkiisa inkastoo hadda waxna ka qaadi karin laakiin ninka waa nin dadka maarag balaayadu ba jecel war dad qaar oo dhahayna jirta farmaajo uu balaayo jecel wallahi inuu balaayo jecel waxaad ku garataa waxyaalaha qaar uu aaday markaad fiiriso de waxana anaga noo cuntamaynin buu Soomaali waxaan cuntamaynin buu sameeyaa ninka laakiin ninka waa balaayo jecel yahay balaayada ay ugu ka baxdaa maasha dadka qaar ay dhahan farmaajo balaayada ugu ka baxdaa horta wixii la sheegay waa run wallahi wabillahi ta'ala farmaajo Soomaali dhexdeeda inuu nabad dhigo ma rabo farmaajo waxay ugu ka baxdaa dagaalka iyo balaayada iyo waxaas ay ugu ka baxdaa war ninkan habeen baas ma la dhalay aniga waa mid iga yaabisay farmaajo qayr Ilaahay dhinaca naga maray shirkood ma garateen farmaajo qayr Ilaahay shirkood dadka dhinaca ka mariyo laakiin ninkan waxa laga cabsi qabaa inuu wadankan hadda meesha ugu nabadsaneed waa Jubbaland oon ciidan ooga baahnayn Jubbaland ciidan ooga baahna farmaajo doorashadeeda had dhacdo kor uu kala socon karaa wuxuu ciidan ajirnabi u keenay haddee waxa weeyaan waa wariya hadduu ajirnabi rabo xamar uu joogo oo amniga faraha ka baxay muddo ciidamaha shisheeyaha amniga ha qabtaan xamar hal ii keeno muddo taas ay ku aadanaan lahayd ya wariya Ilaahay aqaana balaayo uga canaya kan balaayo war balaayo intay balaayo ku dhigay balaayo ku dhataan ma jirto farmaajo balaayo u canaya marka waxa la yiri ninkii waxa la yiri dibkiisa asaga dibku qaban way xamar waxay uga dagi laadahay dibku wata waaye haddana Jubbaland uu rabarbaleen qayl inuu geliyo marka madaxweyne farmaajo Xasan Cali Khayre xukuumadooda waa dhacday dhulkay ku dhacday in rabto malaha waa la nacay meel walba col iyo uqdad ay geliyeen ma garateen war walaalayaal kuwa dal isku keenay ama dal hogaaminay ama dal nabadaynay ma haddana saan maqlayna maanta shalay waxa la leeyahay shidaal bay gateen waxa la yiraahdaa akoonsigooda ayaa lacag dollar oo malaayiin dollar ugu soo dhacday sheekay marka dhulkiina dhinacay ka gadan hayaan waxba lama ogo dadkii waa kala shakisiyeen waa kala fiijiyeen xamarna gacanta ka bad dadkeedii waa dhamaaday gobol maamuleedyaashina waa kan waa loo dhaaranhayaa balaayo ciidamo shisheeye balaayo jinniyeysana waa lala soo saaxiibay marka shirkadooyina waa lala soo saaxiibay lacag laga qaato dhulkii sidaalka waa dhinac ka gateen akoonsiyood lacag baa ku dhacdaa la yiri marka waa bari wariyaala marka farmaajo saas waa anaga laftirkeena ciidamo dalbana waaye ciidamo inaan dalbana waaye Uganda iyo Kenyaanka iyo ciidamo kale noo soo kordhay inaan dhahna waaye
sidan tala kuma jirto war meesha la isaga kaco fadhiga la isaga kaco gobol maamuleed yaalow ciidamo kala dalbada idinkana isxoojiya farmaajo balaayo inuu soo wadaa iska qabta ninkan qalqal mooyaane wax kale noo soo wada male marka dowladda Kenya ayaan laga waswasin ani saasaan iyo sheegayaa yaan laga waswasin dalkan hadduu balaayo keenay dadka ku sugan ay dib u keen lahaayeen ma jirto waxaas fila Soomaali waa laga waswas laga qaadan baa waxana loo sameynaya fila Soomaali ma fiicna xaaladeeda waa la furfuri la xaaladeeda waa isku xirxiran yihiin dadka sarbeeb wax loogu sheego sarbeeb waxna lagu sheegayaa fila Soomaali way xaaladeeda waa musuqmaasuqa laga dareemay marka musuqmaasuqa meesha lagu dareemay in albaabada loo laawo way ku saxan tahay siyaasadana kor baad ka fahmaysaan marka waxa waa dhananaatee dhab waay markaas marka aniga saasaan ina sheegayaa Soomaaliyeed Jubbaland waa loo dhaaranaya leeyahay waa farmaajo wuxuu leeyahay Ethiopian iyo Eritrean ayaan dalbado buu yiri ku qaban rabaa Kismaayo asagaa raba inuu gadgato dadkeeda inuu qalqasho saddex xamar u qalqasho yuu rabaa Kismaayo inuu u qalqasho xamar wuu cuna dadkii wuxuu canshuurka qaad kara iyo wuxuu qarxiyo ka dhigay dadkii waa dhameeyay haddana Kismaayo soo dhaaranaya marka dhaarta beentana wax tarto dhananaatay dhab waaye Amison hal kordhiyo Kenya lagu kordhiyo Kismaayo amnigana aad loo xoojiyo farmaajana hadda taariikhtiisa la socdo meeshu lugta marinay meeshu wax ka dalbanay la socdo kor laga ilaaliyo asaga in la ilaaliyo u baahan kane marka saas aniga halkaasaan caab ka arkayo wax meeshaas waay meeshaas share ina ku dhigtiin al raawariyaa ina share gareysiin rabaa inaad ii share gareysiin baa walaalayaalow siyaasadan baa fiiriyaa hadda kulay wax kala hadda soo gelin meeshan laakiin siyaasadda dhib male inta daan isaga soo tuurahaataan marka wuxuu nacayaa waxa cudurkiisa Axmed Madoobe iyo Axmed Xaafi waxyaalahaas nimankaas waxba dhibaato kuma hayaan dhulkooda way iska nabadaysan dhulkooda way iska joogaan hadday kursiga ku soo noqonayaan iyo hadday ka sii tagayaan kulay asaga wax dhibaato ku leeyahay asaga un baa ka cararsan si asaga dad uu dilay iyo dad uu xasuuq u raadinayo dad qof uu adeegsan karo intuu meesha geysto dadkaas uu rasuul maragtay madax uga garaac lahayd dhulkan uu gadan lahaa ninkii intaas uu doona asaga laftiga waa la soo shaqaaleystay waa la soo dirsan yuhuudda soo dirsata ninkan marka sidaas weeyaan marka khayr baan ina rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi